arrinkan ayaa ka dhacday tuulo 2 kiiloomitir u jirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu magacaabo Shukurow 2 maalin ka hor haweeney tuulada degan ayaa dhashay wiil iyo mas sida ay sheegeen dadka booqday qoyska waxay tilmaameen wiilka yar inuu dhashay markii hore daqiiqada kadibna uu ka daba dhashay maskan oo la mataan ah wiilka waxa dadka booqday warku inta ku darayaan in maskan uu muuqaal madow leeyahay una muuqda midab ahaan wiilka yar inuu shabaho qiyaastiina ay isku dhirir yihiin dhaqdhaqaaqa uu sameeyo wiilka ayuu isna sameeynaya waxay inta ku dareen marka qoyska loo soo martiyo inuu dhuumanayo maska isagoo u muuqda inuu ka baqayo in la waxyeeleeyo Cabdullaahi Maxamed oo ah wiil dhalinyaro kaasi oo booqday haweeneyda ku nool tuulada Shukurow oo qiyaastii 2 kiiloomitir u jirta degmada Afgooye arrinkan ay ka dhacday ayaa ka sheekeeyay waxa uu isagu arkay waxaan la kulannay maamo dhashay wiil iyo mas oo mataama ah wiilkii ayaa soo hormaray kadibna waxay dhashay maskii marka aabihii dhalay markuu arko uu la joogayaa hooyadii uu la joogayaa laakiin hadduu nin kala soo galo maskii wuu cararayaa oo wuxuu ku cararayaa sariirtii hoosteeda ama meel kale ku dhuumanaya waa mucjizada hadda lagu arkay tuulo la yiraahdo Shukurow oo u jirto qiyaas ahaan magaalada 2 kiiloomitir wallahi maska markaan soo aragnay maska waxaan ku qiyaasnay inta mitir uu yahay inta wiilka uu yahay wiilka hadduu maska uu imaanaya wiilka hadii caano la siinayo uu imaanaya maskii asana caano weela loogu shubaa weelkii la siinaya sidaas darteed hadan dad hadduu soo galo 2 qof 3 qof ay soo galaan qolkii uu cararaya maskii wuxuu ku cararayaa sariirihii ama meelihii kale uu ku dhuumaadaysan kara waxay ka mid tahay mucjisooyinka la maqlay kana dhaca meelo kamid ah caalamka laakiin dadka tuulada Shukurow ayaa dhacdadan ay u tahay markii uu horeysay qoyskan ayaa la isweydiinayaa sida ay ula noolaan doonaan maskan oo iyagu ay waalid u yihiin sida muuqatana mataana ay yihiin wiilka yar oo ay dhaleen